naagtan waxay bilowday inay uurkeeda qarisay kadib markii gabdhaheedu Mareykanka ku maqnaa ay dib u soo laabteen maadaama qaybta sare ee guriga saarneedna waxay ka codsanayeen inay hoos u soo degto si ay u arkaan waxay ku dhahaysaa meeshiina iga jooga ay soo korinina aniga 2 daqiiqo kadibna imaanaye caloosheeda siday u duduubaysay waxay gaarsiisay heer aan laga dareemin inay uur leedahay labadana waxay ku faraxsan yihiin inay 2 daqiiqo kadib arki doonaan hooyadooda aysan arkin sanado aad u badan labadii daqiiqo markay dhamaatay intay u timaaday midaan waxay maagtay hab inay siido intay diiday waxay taagan tahay xal si qaldan u seexda u maleena dhabarku ay xanuunaa sidoo kale calooshu saa'id iyo xanuune laakiin iyaga iska fiicnaa doona caadi way iska daayay xoga ay wada sheekaysanayeen kadib midaan hooyadeed waxay ku dhahaysaa maadaama aan bil fasax haysano adiga badda ku wadina baduna maahan mid isla markii laga soo laabanaya isbuuc dhan deganaa rabaan waxay bilaabayaan marka inay tusaan inay hore ugu soo gadeen dharka dabaasha laakiin iyadu waxay taagan tahay waxaan iga daayay aniga dhalinyaro mihii waa duqoobi intaasna waxay u raacinayaan maanta dhakhtarka isla balansanahay sidaas darteed mani raaci kari iyaguna hadalkaas aad ay ugu niyajabeen maadaama ay rabeen fasaxooda inay uga faa'iideystaan inay hooyadu waqti la qaataan mar kale waxay ku dhahaysaa mar walba caafimaadka horeeya sidaas darteed markii aan caafimaado aniga xeebtan kugu imaan doono saacad kadib waatana iyadii oo dhakhtarkan ka furfuraay wixii ay caloosha isaga xirxirtay waxa uu sheegay inaysan mar dambe calooshiisa saan u xirxirin maadaama ay ku jirto bishii ugu dambeeyay ee dhali lahayd waxay taagan tahay xaaladaas waxa iga daran inay gabdhahaygu ogaadaan in anigu uur leeyahay waxa ku dhahaa ma jirto qoraxa si loo qari karo sidaas darteed fogaata ama dhawaata gabdhahagu way ogaa doonaan arrintan kulaha waqtigaas hadda ma dhawa laakiin markii la gaaro waxa ka fikiraya sida ugu sheegi lahaay isla markaas dhakhtarku wuxuu ogaaday midaan inaysan xaaladeedu caadi ahayn sidaas darteed intuu soo wado isbitaalka keenay wixii ay isku xirxireedaa cunuga ka soo riixa u maleena qolka dhalitaanka loo diyaarinaa dhinaca kale gabdhaheedii waa kuwan ayagoo raba inay xeebta aadaan laakiin waxay ka murugaysan yihiin maadaama ay hooyadood u soo raaci weyda dalxiiskooda laakiinse waxaysan war u hayn hooyadood hadda inay isbitaal joogto isla markaasna ay cunug yar haysato dhakhtarku wuxuu ku dhahaa hadda arrintan waxa uu sheegaa gabdhahaaga si ay kugu yimaadaan laakiin way ka diiday waxayna u sheegaysaa gabdhaheeda hadda inay dalxiis u baxeen aysan rabin inay ka qasto kadib dhakhtarku cunugii yaraa intuu ka qaado wuxuu u sheegaa in loo baahan yahay inay saacado nasato asbuucii ay gabdhaheedu fasaxa ku maqnaayeen wuu dhamaaday iyaduna isbitaalkii way ka soo baxday guriga ku soo laabatay dhakhtarkuna hore u soo raacay si uu xaaladeeda u ogaado kuwan hadda guriga yimaadeen hadalkooda markay maqasho dhakhtarku waxay ku dhahaysaa ayagii waayo cunuga iga qarihay waa soo laabteene isaguna si fiican muusan u qarin mara meesha shaalo intuu soo qaato ku daday kadib markay gudaha soo galeen wuxuu u sheegaa inuu meeshan u yimaaday inuu xaaladda hooyada ogaado haddana ay xoogaa fiican tahay wax yar markay la sheekaysteen kuwan waxay bilaabayaan inay birkimo soo qaataan kadib ay hooyadooda la ciyaaraan isla markaas midaana birkita meel qaldan ku dhufatay cunugii ku jirana uu ka soo baxay iyagoo yaabanay waxay ku dhahaysaa cunugan dariska iskale waxay iga codsaneen intay soo laabanayaan inaan u sii haayo kadib midaan intay xanaaqday waxay taagan tahay hooyadii iyadaaba xanuunsanay sidee dariska ugu dhiibanayaan cunugooda maadaama ay dariskooda taqaanana waxay bilaabaysaa inay cunuga dhan qaadato si ay ugu geydo laakiin iyadoo sidaas maysan ku haran iyadoo ordeeday ka daba timaaday waxay ku dhahay cunugan aniga iska rabo maadaama aan keligii ahana waxaan rabay inaan sii waheshado kadib cunugii intay dib ugu celiyaan midaan waxay dhahaysaa anaga hadda waa bixina cashaan idiin doonayna waa soo laabanaynaa marka ay baxaanay walaasheed waxay u sheegaysaa inay hooyadeed wax ka qarinaydo kabahooda intay soo qabtaan ay dhulka ku garaacayaan iyagoo iska dhigayaan inay bixeen albaabkina waa kana way fureen way xireen meeshii ay ku jireen si qarsoodiye u soo galeen iyagoo rabaan hadalkooda inay dhageystaan iyaga oo wada sheekaysanaya anaga hadalkooda waxaan ka fahmaynaa dhakhtarka iyo iyadu inay cunuga wada dhaleen kadib dhakhtarka taleefona intuu u soo dhaco meel luuqa la soo galaa si uu ugu hadlo isagoo mid saaxiibadiisa la hadlaya wuxuu dhahaa midaan cunuga way ii dhashay maadaama wiilka keliya oo ay dhashay uu yahana lacagta dhan isaga ku saxiixaya anagana labadeena waa ku raaxaysanaynaa iyadii intuu u yimaado wuxuu ku dhahaa waraaqadahan waa inay ii saxiixdaa waxay ku saabsan yihiin isbitaalka iyadoo saxiixay rabtaa midii ay dhashay intay soo baxday hal xabo dharbaaxsha u gelisay midkaan hooyadeedii waxay ku dhahaysaa ninkaas sida u malaynaysa maaha wuxuu rabaa inaa waraaqadahaas u saxiixdid kadib lacagta dhanba oo isagu qaato hooyadu kuwan hadalkooda ma aaminayso iyaguna wayba sii ogaayeen muuqaal ay ka duubeen ay tusinayaan markay u sheegeen mar hore inay booliska waceen ordoo guriga uga baxaa kuwan hooyadeed waxay u sheegayaan inay Mareykanka u wadayaan oo meeshan uga tageen muuqaalku intaas ku ekayada halkaas soo gaartay leegnosa ninkan mashiinka wata ninkan kaloo booliska ah inta uu imaado timaa ka xiira isagana wax dhan ma dareemayo midkan kale mootada saaran wuxuu arkaa booliska timaa laga xiirayo wuxuuna isku dayay inuu u sheego laakiin midkan kale wuxuu ku dhahaa aamus midkanna mootoolaha ah wuxuu ka baqaa in la xiro midkan kaloo booliska wuxuu ku dhahaa wax dhan ma dareemayo timaa laga xiiro waa midkan kale shaafir isagana wuxuu ku dhahaa shaqada aan ka qabsado midkan booliska ahna wuxuu ku dhahaa shaqada ma ka qabsan karaa u dhahaa ani xoogaa madax cuncun ayaan leeyahay haddana madaxay cuncunaya u dhahaa kadib midkan koofida ma koosiibo booliska midkan kale timaa dhammaan ayuu ka wada xiiraa isagana meesha waa iskaga cararaa kadib kii mootoolihii ahaa booliska wuxuu ku dhahaa timaada hadda dhulka yaala ee ka xaabsoo dhaani waraaqadii leysinka igu wareejiyay wax maanta oo dhan kuu sheegaa waa seegseegaysay isagana wuxuu bilaaba wuxuu dhahaa saaxiib hadda runtaa miyaa timaa ma laga xiray isagana wuxuu ku dhahaa waraaqadihiisiin iyo leysinka meesha aan ka cararay aniga kadib buu iska soo tagayaa midkan booliska ana markoo midkan kale oo ka taga isagana wuxuu bilaaba inuu shalaayo wuxuuna dhahaa warkiisa daad maxaa u qaadi waayaan midkii timaa booliska ka xirina waa kana isagoo alxamdulillah dhahayo mootadii markay meesha ka soo baxday inta wuxuu dhahaa iga tag adale ma ah kii mootoolii ahay oo la soo badbaadinay isla markii wuxuu bilaaba inuu ninkan ku qaqeeliyo isagana wuxuu ku dhahaa waxba uu qeelno dhaaniyo saaxiibo wax dhan
ma ogid ninkaas wuxuu ugu simaadaa kaaga sheegayaaba isagana wuxuu ku dhaca muxuu ka helay ii sheeg isagana wuxuu bilaabaa inuu aaga sheekeeyo wixii ku dhacay sheekadii oo dhameystiran waatane midkan isagoo maalin mooto tahay midkan kale booliska istaajina wuxuuna ku dhaca waraaqadaha liisinka kan isagana wuxuu ku dhaca wax dhameyst waa soo uloway waa ujeedaa mootada in liisaaran yahay iga wareeji saaxiib maanta liisinka waa soo uloway midkan booliska ana ma ka yeelaa wuxuuna dhaca xitaa xoogaa lacag hataa siin waa ku fasaxaya maanta oo dhan qoraxdan taagnaay kanna mootolii aayna wuxuu bilaabaa inuu booliskii baryo isagana ma ka yeelaa wuxuu dhaca waa inaad degtiin labadiinaba ayagoo yaabanay mootadii ka dagayaan kan booliskan asigoo naxsan oo mar labaad weydiina xoogaa lacag siin mootada iska wadaya isagana wuxuu ku dhaca wax dhamaayo kadib mootadii marka laga kaxistay kanna wuxuu ku dhaca saaxiibtiisa saaxiibaad meeshan baawur ma socday tartiibka iska socon ilaa xaafadan ka gaarnay markii sheekada loo dhameeyay kanna wuxuu bilaabaa inuu midkan kala dhiirigeliyo wuxuuna ku dhaca saaxiibo waa ku saxaneed inaan ninkaas timaa ka xiirto kanna maadaama la dhiirigeliyay ku dhaca ayuu dhaca muuqaalka haddaa intaa soo gaartay wax kale ma sugaysaa ilaagii fulo iskugu dar ninkan tuuga ah gurigan intay maadoo gargaraaca alaabtii oo wadan intaa dhigoona kana carara xoogaa kadib midkii guriga lahaayaa soo baxaya asigoo raadinaya qofka albaabka soo garaacay asagoo yaabano wuxuu arkaa alaabta meesha lasoo dhigay kadib alaabtii uu qabsana wuxuuna isweydiinaa qofka alaabta meesha soo dhigay kadib geesaa inta fiirfiiriyoon weynaa isagana guriga ayuu iskaga xaroonaa qabiis buluug asigoo shakasado guriga soo gala wuxuuna isdhaha waxa meeshan ku dhex jiro waa inaa fiiridaa kadib waa kane alaabtii wax meesha ku dhex jiro rabaa inuu fiiriyo kadibna waa kanay sanduuqa usoo baxay wuuna furaa wuxuuna arkaa dahabkan qaaliga ah wiilkiisoo meesha iska maraya arkaayo aaba wuxuu dhahaa waxa meesha ku dhex jiro maxaa waaye odagana wuxuu dhahaa waa ujeedaa wiilkaygoo dahabkan qaaliga bannaanka liisoo dhigay albaabka agtiisa anna waa iska soo qaatoo dhaha qofka iisoo dhigana waa ka shakasanaa wiilkiisana wuxuu tusinaa waraaqada meesha ku jirto odagana waraaqada inta qabto kala furaa kadib waraaqadii uu akrinaa alaabtan haddaa aragtiin oo dahabka ah waxaa iska leh nin beeraley ah haddii aad aragtiin iska soo celiya qabiis buluugna waa kane wuxuu raadinaa qof beeraley ah waxaana ku soo dhacaya midka u shaqayn jiray isagana go'aan uu qaadanaa dahabka uu guriga dhiganaa ugu dambeyn qabiis buluug oo soo baxa wuxuuna imaanaa shaqaalihiisii kadibna wuxuu ku dhahaa labadan beri dahabaa soo gadatay midkan beeraleyda ah wuxuu dhahaa lacagtii bisha aan kuga laamaba isiina maxaa dahab soo gataa isagana wuxuu ku dhahaa haddaan kusoo siinayana keen qabiis buluugna waa kane asagoo raba inuu salliga ku tukanayo oo qaato wuxuu maqlaa wiilkiisoo moobeel ku hadlayo oo dhahayo saaxiibu aabahe alaabta usoo dhigada guriga hortiis wuxuu u maleeyaa dahab inay sixiriyi maga ogaba odagana waa kane wuxuu dhahaday intaanu dhayay anoo raba inuu uga ciyaaro aabihiis odaygana asagoo yaabano albaabka ka soo baxa wuxuuna dhaha waxa maanta dhan aan ku rafadaa ilaa wiilkiiyaa ka dambeeyey muuqaalka haddaa intaa soo gaartay laag iyo falo iskugu darar soo dhawaada ninkan aad u jeediin wuxuu rabaa ninkaas inuu halaago wuxuuna ku daadanaa jidka baliishan islamarkiina waxaa arkaa midkan wuu soo cararaa kadib midkanna wuxuu ku dhumanaa meeshiisii intoo soo carara ayuu wuxuu istaajinayaa midkii mootada watay wuxuu ku dhaha adiga maxaa ka qaldan jidkanna ma ujeedid miya inaa meeshan ku dhimato maa rabtaa naftaada manac isagana intoo wadada fiiri ayuu wuxuu arkaa in baliil lagu soo daadiyey intoo gacmaha madax saarta ayuu ninkan wuxuu ku dhahay maanta adiga hadda aan layn waa dhima lahay ee waa maasantahay niyo kadib intoo la hadlaayo wuxuu ku dhahay waa maasantahay waxba haydhin ee naftaada inaa badbaadiya oo keliya ayaan rabay isagana wuxuu ugu jawaabaa dhima lahan waana maasantahay laakiin waxaa ku weydiinaa duurka maxaa kayda oo u joogtaa isagana wuxuu taagan yahay aad ayuu ka jeesanaya duurkaanna waa ka qaraabtaa haddana baahiya ayaa hayso intoo ooya ayaa midkan wuxuu ku dhaha waxbaha oynin waxaa cunta aniga ayaa ku siinaa mootadan soo kor labadoodiina way soo baxeen adiga ay fiirsanayna muuqaalka lagama saarin weli kii wadada baliishii ku daadiyeyna intoo meeshii ka soo baxay wuxuu taagan yahay maanta waa inoo dhacataani saaxiibkii labadii ninna waa kuwa midkanna wuxuu bilaabaa inuu ninkan ka jiibsibo moobeelkii oo ka xado kadib mar labaadna wuxuu ka xadaa boosadii lacagtii ugu jirtay jeebka labadoodiina waxay imaanayaan maqaayadaani islamarkiina wuxuu u caa ninkii maqaayada ka shaqeynaya dalabka qaadayay ayagiina waraaqadii markii loo dhiibay islamarkiina waxay dalbanayaan jabaati maraq midkaanna waa maasanta ayuu ku dhahay islamarkiina wuxuu u keenaa dalabkoodii ay dalbadeen midkaanna wuxuu weydiinaa badarkan oo kali weligaa ma cunta isagana intoo badarkii la yaaba ayuu wuxuu sabaayadii dhan intoo qabta ayuu hal mar afka gashanaa kadib midkaanna waa ka yaaban yahay midka jidkii baliishii kusoo daadinaya iyo midkan tuuga ahna way soog yihiin kadib intoo u imaada ayuu wuxuu ku dhahaa waa gaajaysanaya waxaa cuna ayaan rabaa ee wax ii siiyo midkan isagoo midkan dhib ku qaba ayuu midkan kale markuu u imaada wuxuu ku dhahaa masaajida ayaa laga toogsaday iga tag midkaanna saaxiibkiisa intoo u baaqa ayuu wuxuu ku taagan yahay wax isii isagana intoo indhax cadday ayuu taagan ama ninkan i baxrayaa maanta midkaana qorsho intoo dega ayuu midkan wuxuu ku dhahaa sadaqada way fiican tahay inaad baxsato anigana wax waa isiyuusa maskiinka badarkana la cuna iska dhaaf ugu dambeynna midkan wuu ka dhaadhiciyay isagana soo fariisay ayuu ku dhahaa midkana juuning intoo dhulka dhigta ayuu badarka wuxuu cunaa sidii ninkii markii koowaad u cunayo kale uu cunaa isagiina midkaanna wuxuu la yaaban yahay labadaa nin aad u gaajaysan oo haddana sabaayadii isku dagaalaya ugu dambeynna labadaa nin ninkan badarka way ka boobaban weyna ka dhamaysteen kii maskiinka iska dhigayna wuxuu taagan yahay niyo aad u dhargi waana maasanta haddana waa sii baxa aniga kii labaadna wuxuu
wuxuu ku dhahaa waa maasantahay anigoo gaajaysan ayaa dharjisay waana kaaga mahadcelina haddana waa sii baxaa. kanna wuxuu taagan yahay labada nin way igaadeen. xoogaa kadibna waxaa loo keenaa waraaqadii lacagta ku qorneed badarka ay ku cuneen. midkaana isagoo lacagta bixi maaga ayuu jeebkii gacanta gelina wuxuuna ka weynaa lacagtiisii. labadii jeeb markuu lacagtii ka waayna wuxuu ku dhahaa niyo lacag ma haysto. midkaana waxaas lagaama yiila ayuu taagan yahay. isagana wuxuu taagan yahay labadii nin ila socdeen ayaa moobeeladii iga dhaceen haddana waxaa rabaa in alaabta idiin dhaqo. isagana wuxuu ku dhahaa ninka maqaayad iskale ayaa kuu geynaya inakeen muuqaalkan intan ayuu ka ekahay. ninka aad u jeediin waraaqadan akhrinayo waxaa loo soo diray adriiskan. isagana wax dhamooga baasiilkiisa ayaa kor laga saarnaya. alaabtan oo rabaa inuu geeyo markuu ciwaanka arka inay si sax tahay adriiska. isla markii wuxuu weynaa baasiilkiisa wuxuu dhahaa malin indha saraacada mase anaa u maleeyo. baaskiilkiisana waa kanay kor ayuu ka saaran yahay. midkaana isagoo baaskiilka raadinaya midkan kale wuxuu weydiinaa maxaa halkan kayda oo ka qabanaysa. isagana wuxuu uga jawaabaa baasiil halkan yaala iga maqan. midkaana wuxuu weydiisanaa inuu ilaahay badbaadiyo u sheegaa waa inaad bixidaa oo dhaa lacag sadaqa ah. isagana wuxuu weydiinaa lacagta sadaqada aad sheegaysa maxaa kanna wuxuu sheegaa dad halisa inay joogaan duhurkan sidaas daraadeed alaab qaali ah wadataa oo dhaa xitaa xoogaa lacagaan kaaraba laakiin lacag waa isii weyd oo dhaa haddana waa iska baxaa. iska tegoo dhaa alaabtan fiqiga lagu soo dhiibay inaa u geeyaa jirto. ninkan waa ninka duhurka ka taliya kadib ninkaana loo soo qabtay basada xeelan leh wuxuu dhahayaa meeshaan ku keen oo kusoo qalday. duhurka anaa ka taliya oo dhaa sidaas daraadeed waa inaa lacag madax furasho qof ah wactaa si aan kuu fasaxo isku badbaadido. nambar ayuu gelinaa kadib wuu u dhiibaa iyo subscribe yuu dhaa. wuxuu u sheegaa inay anteenada xun tahay si oo geedkaas u koro anteenada si fiican u soo qabato mana baxsan karti oonu ku dhahaa. midkaana daacad waa wuu iska lugeynaa shaqadiisa hor waa inuu guto saaxiibkiisa fiqi ah inuu u geeyo rabaa adeegan loogu soo dhiib. kadib wuxuu arkaa boor meesha ku dhegan wadda ay u tilmaamaydu aadaa. kii basada xeelan lahayn moobeelka lay qabanlaaya wuu qiilinayo. waxaa maqlaya ninkii duurka ka talinayay saaxiibkiisuuna la hadlaa wuxuu dhaha ninkaas ii soo qabo. kii duurka ka talinayna waa loo soo qabtay. isagana isla markii wuxuu ka tumaa basada wuxuuna ku dhahaa maxaa dad ugu cawaasay. isagana moobeelka liiga qabo waayuu dhahaa. midkii alaabta wadana waa kane isla markii ninka duurka ka talinaya wuxuu weydiinaa ninka maskiinka ah maxaa ku haysataa. isagana wuxuu ugu jawaabaa duurkan qof amar la-aan soo gali karta malaanu dhahaa. kanna inta naxo wuxuu weydiinaa qofkaas muxuu haliyuu dhahaa. wuxuu ugu jawaabaa amar la-aan ayuu soo galay. hayee midkaas kalena meesha ku xiran isagana muxuu galabsaday. wuxuu u sheegaa duurka inay amar la-aan soo galeen sidaas daraadeed duurka aniga ayaa ka taliyo dhahaa. adiga hadda amar la-aan maxaa usoo gasho dhahaa maxaana wadaa. midkaana inuu isbadbaadiyo rabaa wuxuu dhahaa alaabtan aawad mataqaano dhahaa youtuberada sidaas daraadeed qofaa lagu soo dhiibay oo dhahaa ee haddii aan ku siiyey ka waran. midkaan basada xeelan leh wuxuu u sheegaa ninka duurka ka taliya inaysan waxba u tarin baashaan. isagana intuu xanaaqo isla isagii basada ka dharbaaxa kadib kanoo wuxuu u sheegaa inuusan lacag waxa uusan qaadanayn. kadib alaabtii uu waday oo ka tuuraa wuxuuna u sheegaa lacag waxa inuusan qaadanayn. kadib isagana wuxuu u sheegaa inuusan waxba ka qaadi karin oo boolis u wacayo. intay ku qoslaan waxay tusinayaan nin boolis oo meesha ku xirnay adiga ay fiirsanayaan muuqaalka lagama saarin. midkaana wuxuu weydiisanaa codsi ninka duurka ka talinaya wuxuu ku dhahaa saaxiib hadda waa soo qaldoomay dibdaba u imaamaya duurka ayaa iska keefasax. isagana wuxuu ku dhahaa amar la-aantii ma bixi kartay duurkan meeshaan dhanna anaa ka taliyo. kadib kii uu shaqaynaya wuxuu ku dhahaa ninkan ii xirxir. muuqaalkan hadda intaan soo gaartay laaginoo saar. ninkan digsigan shaaha saarano intuu u imaado wuxuu ku shubaa yaanyadii uu watay. kadib midkii shaahii karinaya wuxuu weydiinaa meesha maxaa ka haydaa. wuxuu ku dhahaa shaah inuu diyaar yahay in kala fiirinayay. saaxiibo hadda orod bax alaabta dhaq shaaha anaa karinaayo. midkaana wuxuu taagay anuu alaab dhaquu iisoo diraamaya laakiin maxaa ka rataaba maanta waa ceebeenaye. kadib midkaana imaana isagoo raba shaahi inuu sii karsado kana wuxuu ku dhahaa 2 koob shaah oo kalkacsan nookeen oo caleenta ay ku badan tahay. midkaana wuxuu ka codsanaa inuu isaga fadhiisto. wuxuu kaloo sheegaa shaah caleenta ay ku yartahay inuusan rabin. isagana hayuu ku dhahaa waa kuu keena ay sii fadhiiso. midkaana wuu soo baxaa wuu fadhiisanaa adigana muuqaalka lagama saarin. midkaana wuxuu weydiinaa dadka Yurubta ku nool in la soo celi rabo ee warkaas maxaa ka jiro ku dhahaa. saaxiibkiisina wuxuu ugu jawaabaa inay sax tahay arrinkaas oo dadkaas la soo celi rabo laakiin adigu ku faraxsan tahay ku dhahaa in la soo celiyo dadkaas. isagoo sheekadii sii wadaa wuxuu wacaa midkii shaah karinaya shaah noo keenuu ku dhahaa. midkaana diyaar waa ku dhahaa waa idin keena isuga. midkaana ilaahay oo baryaa wuxuu taagaa ilaahay maanta shaah ugu ceebeen isla markiina wuxuu bilaabaa inuu shaahi shubo. wuxuu ku dhax arkaa shaah oo yaani lagu dhex kariyo maxaa qaldan ku dhahaa ayaa saan yeelay maanta. xoogaa kadib isagoo wareersanaa waxa uu imaanaa midkii la shaqaynaa wuxuu ku dhahaa saaxiibo labadaas nin waa taqaana shaah kala kacsan oo caleen lay jecelin haddana aniga miiskaas sii titara adigana shaah u sii boobsiyey. isagoo aad u welwelsanoo naxsanoo wuxuu dhahaa maxaan sameeyaa maanta. isagoo aad u welwelsanaa waxaa ku soo dhacay isla shaaha inuu ka gado oo yaanyada ka miiro. isla markiina wuxuu soo qaadaa shaahi nimankii uu keenaa kana wuxuu ku dhahaa waa fasaxan tahay. isagoo aad u welwelsanoo ka soo tagaa. midkaana saaxiibkiisa wuxuu u sheegaa maqaayad ka fiican inaysan jirin shaahid uu dhidhimiyo maanta. kana shaahi markuu cabo wuxuu dareemaa inuu shaaha aad iyo aad u mac yahay. midkii shaahi yaanyada ku darayna waa kana wuxuu taagan maanta maxaa ka rabtaa saaxiibkii nimankana ku ceebeenahay. midkaana saaxiibkiisa wuxuu ka codsanaa qofka shaah kariya inuu u waco. kadib saaxiibkiisii fiqi oo wacaa kaale ku dhahaa intii ugu imow. isagoo aad u naxsanoo welwelsanoo isdhahay nimanka maanta maxay kugu sameyn doonaan oo uu imaana. marka uu imaadana wuxuu weydiinaa qofka shaah kariya waay isagana ani waayo ku dhahaa. midkaana wuxuu taagan qof adigoo kale waa raadinaan dhowr sano kadib laakiin maanta aan helay adigana maqaayada ana ka shaqaysa maba aanu ku dhahaa kadibna ana ii gadan tahay anaan ii shaqaynay. isagana wuxuu taagan ilaahay maad iskale laakiin wax walba saaxiibkii ayaa ka dambeeyay. midkaana wuxuu taagan maqaayada
maqaayadda ku dhino maqaayad fiican waaye. isageena saaxiibkiisa ku mahad celinaa. midkaan kale wuxuu ku dhaana keen maanta wixii ka bilowda anaa ii shaqaynahe. midkaana markuu arkay saaxiibkiisa maqaayadda inuu aaga tegay oo kasoo daba ordaa. midkaana wuxuu u sheegaa inuu maqaayadda kaliisa uu ku soo haray oo haddana uu ka codsanayo inuu isagana gurigiisa boos ugu raadiyo oo uu rabo saaxiibkiisa inuu la shaqeeyo. saaxiibkiisana wax walba uu ogyahay. wuxuu ku dhaha anmaa kuu shaqayna mas ninkaana kuu shaqayna ii sheegniyo. kadib adaa ii shaqeeyso ku dhaha ninkaana way iska reebayaan labadoodana way soo baxayaan. adigana muuqaalka laag ma saarin. kadib midkaana wuxuu u sheegaa inuu isaga yaanyo uu ku daray shaaha oo isaga mudnaa in la wado laakiin saaxiibkiisa taasi hadda bedelkeeda oo la waday. kana inta dharbaaxshay wuxuu ka siibaa koofidii iga tagoon ku dhaha muuqaalkana intaan ayuu ku ekaa hadda intaa soo gaartay laagno saar. ninkan aad u jeediin biyaan haantintaa gimaado shacfaraankii wadan ku qasaa isagana waa iskaga taga qorshe uu ku leeyahay dib ayaan ka ogaahaynaa. midka maskiinka ah shaqaalaha wuxuu la hadlaa saaxiibkiisa wuxuuna ku dhaha biyaha iisii daara isagana wuu ka ogolaanaa biyihii ma koo daaro. midkan shaqaalahana ah biyihii meesha uu ka sugaya waxaa uga soo baxaya shacfaraankan wuuna urinaa inta shakiya oo naxoona kana cararaa godkii isagoo naxsan oo ordaayo. inta saaxiibkiisa u imaado wuxuu ku dhaha saaxiibo godkii maanta o dhan aqodiin oo tubadii la rabo inay biyaha ku furmaan waxaa ku soo furmay dhiig ayna keenaan soo aragne. kii biyaha shacfaraanka ku soo shubana waa kana wuxuu iska dhigaan ogeyn. nimankii shaqaalaha ahayna waa kuwan godkii ayay ag imaanayaan. kanna biyihii shacfaraanka ahay markoo uriyo saaxiibkiisu weydiinaya waxay yihiin. isagana wax dhamma ogo dhaha biyahaas u soo furta waaye waxayna la hadlayaan booskoodii. isagiina waa kana biyihii tubadii ahay markii loo dhiibay shacfaraanka ah wuu urinaa wuxuuna dhaha dhiig waa meesha waa la joogaa umalaah eyna keenoo dhaha way ka soo cararayaan kulligood meesha ayagoo ordaya hal mar albaab ka soo wada baxaya. mid kamid ah booska la hadlaya wuxuuna ku dhaha boos ninkii guriga lahay hadduu imaanaa ee maxaa u sheegnaa. isagana wax kalma dhahayo wuxuu dhaha biyihii meesha laga inay dhiig sudiyeen oo ujeedaya maxaa kaa qaldan. midkan kalena wuu hadlaya wuxuuna dhaha hadda ninkii guriga lahay imaanaa shaqadoo qabiya wax lacag mana siinayo. waxaas ha ka walwala lacagta anaa noogu qaadaa booskiina miihiyo ayna keenoo dhaha hadda ay ugu kalsoon tihiin. ninkii guriga lahayna waa kanee nimankii godka u shaqaynaya inaysan joogin oo arkay wuuna soo baxa. ayagana waa kuwan ayagoo naxsan ee qolkoodii soo galayaan wuxuuna dhaha isdeji anaa xal keenaaya. isagana wax kalma dhahayo wuxuu dhaha ninka guriga lahay hadda uu imaanaya isagoo shakisan godkoona arka in qabiil loogu soo tagay. qofka ugu hore oo wacna waa aniga booskiina ah idinkan aniga iga warsugo. ninka guriga lahayna xoogaa kadib uu imaanaya. iyagoo wada hadlaya ninka guriga lahay soo garaacaya wuxuuna ku dhaha anaa la hadlaya idinka ii kaadiyey marka. ninkii guriga lahayna waa kan albaabka markii laga furay wuxuuna dhaha saaxiibo ballanka saan ma ahayn aniga saan kuma soo heshiin waqtigeena waa la joogaa godkiina waa qoday laakiin wixii biyo kuma furina maxaa kaa qaldaniyo. isagana wax kalma dhahayo ayaan maxa kuu qaban karaaniyo tubadada haddii dhiig soo deeyeed annaga kasta yar hadda howsha aan kuu qabana lacagteeda noo tuura inta kale waa kuu dhammaystirina mar kale kuu imaanaya. intaas ayaa ugu filan dhib oo dhane. midkan iskala bixi oo maagaaw inay meesha wax ku jiraan oo arkaa wuuna fiirinaya saaxiibkiisa uuna tusinaya wuxuuna dhaha saaxiibo waxaa meesha ku jira maxeeyiin ee fiiri saaxiibo. weli way murmayaan nimankii ninkii guriga lahayna wuxuu ku dhaha laba mid soo galno inaa shaqadan toos igu qabato oo lacagta aan ku sii iyo inaa iska tagto mid dooro. nimankii shaqaalii ahayna ninkii guriga lahay u waramayan waxayna dhahayn ninka xag ahaanteeda jiri ninkan waaye haddana waxaa ka soo helnay sariirtiisa hoosteeda shacfaraankan. isagana inay ku caddaatay wuu ogaaday. wax kale maa sugaysaay muuqaalka laagii fulo iskugu dar. nimankan aad u jeedaan iyagoo cooskan cunaya gaajo daraaddeed ayaa waxaa arkaa ninkaas gaariga wata. kadib gaarigii inta kasoo dego wuxuu isweydiinaya nimankan maxaa ku dhacay bal intoo u yimaado ku qaylina wuxuu ku dhaha maxaa halkan u fadhisaa maxaa idinka qaldan oo cooskan cunaydaan. intay istaagaaneen waxay ku dhahayaan annaga waxaa cunnaa weyne. kii darawalka ayaa hadlaya wuxuu ku dhaha waxba ha oynina ninkaa isagaa idiin caawinaya taajirka magaalada waaye. idinka niman dhallinyaraa tihiin inaad gaajootaa ma aan gurigiiya meeshaan ku yeelay ayna keenoo dhaha. intaysan raacin kana wuxuu dhaha 3 maal annaga wax macunin beenteen maamuloo dhaha cooskan isku cunnaa maalin walba. intoo la hadloo ku dhaha ha ooyina hadda kadib waxaa cuntaan iyo waxaa xirtaan anaa idinsinaya gaarigan soo raac. intaas kadib markay gaariga soo raac lahay way farxayaan waxaan dhahay saaxiibna keen gaariga raacnay. kii taajirka ahayna intoo la hadloo gaariga iska furo dhaha soo koro. markay gaariga soo koraa midkan kale wuxuu ku dhaha saaxiibkii saaxiib gaariga qabo moo. isagana midkan waa gaajiysan wuxuu dhaha saaxiib wax qoob la ma jiro dhaha ilaa galas bi qoob aan ka cabo wax qoob ma dareemo dhaha. kii taajirka ah intoo la hadloo wuxuu ku dhaha guriga ku geeya wax walba arabta anaan ku siinaa. isagana markoo maqlo wax walba anaan ku siinaa wuu ka faa'iideysana wuxuu dhaha waxa cunni wax abna kaliya marabna anaga dhar xataa waa rabnaa oo dhaha daryeel. isagana wuxuu u ballan qaadaa wax walba uu hayo inuu farta ka saarayo oona shaqo siinayo. iyagoo faraxsan ay ku mahad celinayaan lacagta noo saar. kadib intoo maqaayadan soo istaago wuxuu ku dhaha saaxiib saxan chicken ii keen. isagana ayuu ku dhaha intaa cuni jirtaa kuu keenaa. kuwaana intay farxaaneen waxay u malaynayaan inay ayaga chickenka loo gado laakiin wax ku dhici doon dib ayaan ka ogaayaynaa. kii maqaayad lahayna wuxuu ka codsanaa ninkan taajirka maanta inuu chicken badan ka gato. kii taajirka ayagana la hadlaa wuxuu ku dhaha badarkan cuni miisi aniga ninkan daroorka bisa cunayn adag gadaal tagoo dhaha. cuntadana labadu bisa cunaya markay dhameeyaan lacagtoona iska bixinaya. saaxiibkiis
darawalka ahna wuxuu ku dhaha dhaqaaji gaariga. Kadib kii maqaayada ah wasla sheekaysanaa wuxuuna dhaha maanta wuxuu ku sameyn doon bal ila arka nimankaas masaakiinta ah. Gurigiina markay imaadaan soo dhawaado dhaha guriga martimo ka tihiin gurigiina oo kala waaye. Intoosan cuntada siina wuxuu istaajinaa meesha banaankeeda oo cooskaeeda wuxuu ku dhaha cunto aad weligeed cunna idin siina. Iyagoo faraxsanayaan waxay dhahayaan waa maasan tahay. Isagana waxay cunaan uma hay laakiin wuxuu ku dhaha waa inaan cuntaan cooskan kadib waa badar idin siinaya. Ninkan taajirka ah wuxuu sameeyay hadduu adigu kugu sameyn lahaa maxaa sameyn lahayd fariintaada noogu reeb commentiga. Muuqaalkana hadda intaan soo gaartay wax kale ma sugaysaa like iyo follow iskugu dar. Tuugan waa tuug aad xirfadiisa u sareeydo midka boorsada halkaas soo dhigto ayuu boorsadan ka xadaya kadibna waa kanee boorsadii markuu waxdo farqa saarto wuxuu dhaha darawal gaari ii istaajinaa dagaa rabaa. Darawalkiina waa kanee gaariga waa istaajinaya wuxuu dhahayaa ay waa degi kartaa. Tuugiina waa uu soo degayaa. Darawalkiina wuxuu dhahayaa kuluu degaya gaariga maartay in la istaajiyo mar waqti aan hayo. Waraa fiiriniyo inaad dagaa rabaa boorsada hal mar iqaba inta ka degayo inaa istaagaa rabaa oo gaariga ka degayo. Waniyo ana wax ma qaban karo waxa hayso hadaad degaydo waa degi kartaa. Tuugiina waa kana saaxiibkiisii ayuu daaqada ugu wacaya wuxuu dhahayaa saaxiibo ma iska soo degtinayo lacag cadiina noo hayo ujeeda boorsadana kana wuxuu dhahayaa wax yar isug. Tuugii labaadna waa kana geesa ayuu iska fiirinaya jeebkiisa ayuu gacanta gelinaya kadib wuxuu ka soo bixinaa maqastaan kadibna midkaan ayuu jeebkiisa qabanaya wuxuu ku arkayaa lacagtan kadib wuxuu isku dayaa inuu ka jarto markuu jartana waa kana jeebka ayuu lacagta gashanaya. Darawalkana wuxuu dhahayaa degay miisaanka waa joognaa darawalow anaa degay. Tuugiina waa kana asigoo naxsan ayuu gaariga ka soo degaya. Tuugaana markuu uu imaado tuugii kale wuxuu dhahayaa maanta waa ka wadanaya nabad. Darawalkana waa gaariga ayuu sii wadaya boosteejada markuu istaajiyo baar wax midkaanna waa kana wuxuu isku dayaa inuu gaarigan ka dega kadib wuxuu waanaya boorsadiisii. Darawalkana wuxuu dhahayaa niyo maad iga degtay gaariga waqtigii waa la joogay. midkaan wuxuu dhahaa darawal adig dega sheegaysa waxa iga maqaniyo boorsadii adama waantaaniyo boorsad makila qaada maxay yidi. Midkaanna waa kana waa la soo wacaya kadibna waa uu baxaya. Xarfaantii tuugada ayna waa ku waxay dhahaan saaxiibo boorsada noo sii furo soo laabanayna. Midkaanna waa kana asagoo boorsada furaya ayaa mobilkan u soo dhacay kadibna uu qabanaya wuxuu ogaanaa inuu saaxiibkiisa yahay kadib wuxuu dhahaa saaxiibo niyo shaqa taale boorsa la keenayo maamaadi. Xarfaantina waa kuwan ayagoo soo labiseen waxay dhahaan saaxiibo maanta waa ka wadanaya nabad liida aadinaya. Haye hoshin wani kala tuura u jeedin lacagteediisa kadibna waa kuwan boorsada ay fiirnayaan saaxiibo diyaar lacagtaada meeqa waa. Midkii boorsada laayna waa kana hoos ugu soo baxay ayagana way naxayaan waxay dhahaan saaxiibo isma intii maadaniyo war waxaasna aniga boorsada soo xadeedin kadibna meesha shaqadii ay keenayeen miya. Saaxiibkii ay soo wacay marka boorsada meesha keenteen hadaa maanta idin dhaafakaaliyo ninkan aad u jeedin dhalada biyaha ku shuwaaya caana ayuu gadi jiray caanihii ayaa ka dhamaatay kadib aashata inta keensaday wuxuu ku shuwaa biyihii uu haystay maadaama ay ka dhamaatay loodii caanihii isagana wuxuu rabaa inuu ka taajiro aashatadan inay caan u noqoto kadib wuxuu dhahaa kadib waa taajira saaxiibkiisana uu waca kaalan ayuuna ku dhahaa saaxiibkiisana wax dhan ma oga isagana waa u imaanaa daacad waa marka uu imaadana wuxuu u sheegaa inuusan looda caano uusan ka lisi karin saaxiibkiisana wuxuu weydiinaa sababta maxaa waayo ku dhahaa wuxuu u sheegaa inuusan wax dhan uusan lisi karin hadda kadibna inay taajiraan ayuu u sheegaa isagana maanta kadib caana ma qaadi kartiyo ku dhaha anaa qaada caanaha xaafadaha geegeeya isla markiina wuxuu bilaabaa inuu caanihii kii ku shubto weelashiisii uu ku qaadi lahaa isagana waa uu soo tagay muuqaalkana like ma saarin weli kii baaskiilka wadani waa kane gurigiisii ugu horeeyay oo imaanaa kadib uu garaaca isla markiina waxa uu soo baxay ninkii guri lahaay wuxuuna ku dhahaa saaxiibo maanta waa soo daaday ee maxaa ka qaldaniyo kanna wuxuu taagan khayr waa inaa soo daa wax dhammood ku dhaha caanihii hore ma ahna way waa ka saafisan oo ku dhaha wuxuu kaloo sheegay in caanihii hore ee la karin jiray midana sidii loo lisi waayo midkaanna wuxuu ka codsanaa inuu caanaha dhiidhinsiiyo isagana waa uu ka aqbalaa caanihii ayuuna u soo shubaa kadib wuxuu ku dhahaa saaxiib caanaha markaa cabtaa ka sheekeyn doontaa inta horeysa inaa war kugu daaliin mar wuu ku dhahaa caanaha si fiican markuu caanihii uu dhameeyo wuxuu ku dhahaa saaxiib caanahan way macyiin waa inaa ii shubtaa 2 koombo oo caano dhici ah caanaha hadda kadib saafi waan ku dhahaa eegila ii kan wax kale ha ii keenin ay saaxiib waa maasantahay ku dhahaa isagana kaalkaale ku dhahaa waxaa ilowday daboolkaagii oo qaado midkaan caana geeyoyiisa sii wadana muuqaalka adana ilaa hadda like ma saarin midkaan shaqadiisa wataa guriga labaad imaanaa wuxuu ku dhahaa yaa joogo isla markii waxa uu soo baxay wiil la fiqi wuxuu ku dhahaa saaxiibo maanta waa soo daaday ee maxaa kugu dhacay horaani war maraba oo dhaaniyo caanaha daaqada karta qaado ku dhahaa lacagta caana ay saaxiibo fiqiyo waa maasanta ku dhahaa isagana khiyaano dheer 2 bilood kadib markay nolosha ku nuurto sidaan oo kale waay wara ninka bangiga joogi ma shaqada maxaa ma kala wada saaxiibo maxaa ka qaldan lacag wixii dhammaan ii soo dirin ee lacaga soo dir midkaan wuxuu taagan 2 bilood inaa xaafada joogo qof caana ii keenay ma laha hadda nimankaas inaa u tago waa dhaha lacag bisha dhan way iga qaateen ee maxaa ka qaldan oo dhaha waa inaa soo fiirad guriga ugu tagaa wuxuu arkaa ninkaan fuusada dulta
taagan oo baashatadaas raba inuu dadka ku qayaamo kadib kana arkaa wuxuu ku dhahaa waxaan siin jirta oo lacag noogu qaadan jirta waxa ma eedo dhaay qayaanada maxaa waa saaxiib ballankeena saama ahayn ilmihii wixii la korleeyay inay waxaana maalin walba siyaamiya kanna wuxuu taagan yahay buuq maraba ee buuqaad iga kordheeray oo dhaani haddaadan gadiin dada ii gadaaya isagana wuxuu taagan yahay arrinkaa ma kugu fiirsan kara haddaan kugu fiirsado inaa ummadda halis ku tahay ogaay oo dhaay booliiskan kuu sheegaya kanna sida ciyaalka kale u dhaqma or soo sheego dhaay ganacsi ma ila leedahay xoogaa kadib asigoo shaqadii wataa waxa uu imaanaa saaxiibkiisii waana la hadlaa wuxuu ku dhahaa guriga inaan gasho waayo booliiska banaanka taagan inaan luu xiran maraba ee orada dhaa saaxiib haddii kale faqiira noqeen isla markii ninkii booliiska ah uu imaanaa wuxuu u sheegaa inuu arrinkiisa uu soo gaaray ummadda inuu qayaano kuwadan u sheegaa qayaano dheer kadib ninka waa la xiray muuqaalkan hadda intaa soo gaartay laag iyo fulo iskugu dar labadaa nin aad u jeediin maqaayadan inta soo galaana mid ka mid fadhiisanaya waana taajir kanna maat wadada ayuu ka soo qabto wuxuu dhahaa isagana fadhiiso midkaana meeshii laga rabo inuu kursiga ku fadhiisto wuxuu fadhiisanaa dhulka kanna wuxuu ku dhahda maxaa kaa qaldan meeshan koonfur galbeed maamuleedahay ee afrikan daafa waaye kursigan soo fadhiiso meeshii laga rabo inuu kursiga ku fadhiisto haddana wuxuu ku fadhiisanaa miiskii kanna inta dharbaxa wuxuu dhahda maxaa kaa qaldan miiskii cuntada waa ee kursigan soo fadhiiso isla markii markuu fadhiisto midkan wuxuu ku dhahaa bacdan abeegto maxaa waaye isagana wax kale ma dhahayo wuxuuna dhahaa saaxiibow ayidii bacdan iisoo dhiibtay waxayna dhahday xamargeeyay soo gadgad kanna wuxuu ku dhahaa miiska noo saarna cambaha wetee keen noo saar naga dhigaaya kadibna ninkii maqaayada waxa wuxuuna ku dhahaa biisa noo keen xoogaa kadib kii biisii wadaa imaanaya midkaana wuu fiirinaa wuu la yaaban yahay ninkaas uu libisan yahay midkaan kaloo wuxuu ku dhahaa saaxiibow cuntada maxaa waaye ana soor lee cuni jiray cambuule midkaana maka waale xaaladda u dejinaa wuxuuna ku dhahaa saaxiibow biisa waaye xitaa biisa xataa ma maqlin miya ee hadda waa noo jarjara waana cuninaa biisihiina waa kanee farta ayuu ka saaraya jeexiisu saxanka ugu ridaya laakiin midkaan makoo qabsadan isla markii wuxuu bilaabay inuu gacanta ku cuno kanna wuu la yaaban yahay wuxuuna dhahaa adaxaa kaa qaldan gacantaa ku cunada maxaa waaye isagana wuxuu tusinaa sida fargeedyada qaandada loo cuno laakiin midkaan ma yaqaan waa la tusinaa saana loo cunaa u dhaha midkaa herbaadiye ah maadaama lacagta laga dhiiro waa inuu qaandadii fargeedyada ku cuno muhiim ayay u tahay wuuna laweynaa kanna wuu ka jiisana cariifkoo kaloo meesha fadhiyo ku quslaa wuxuu dhaha dee midkaan herbaadiya meesha keensta maxaa maanta midkaan kalena wuxuu bilaabaa inuu nagaan la hadla wuxuuna ku dhahaa saaxiibow qaandada xataa iska dhaaf gacantaa iskaga cuniyo isagana waa maasanta ayuu dhahaa midkaana inta kasii jeesto isla sheekaysaa wuxuuna dhahaa waa maasanta hadda qalin maxay kuu tareen ninkaa inaa u fikirta waayo qorshe u degta maadaama lacag badan kaa bixi rabto kii taajirka iska dhigayana wuxuu dhahaa caloosha ayaa xanuunaya musqulan ka soo laabana kanna xabadda meeshu taal inuu cuno isku daya waana laga dafaa afkoon gashaa waana soo laabana dhaha isiisu kii herbaadiye ahayna biyo meesha yaalo caabaa 3 saacadood kadib isagoo isweydiinaya saaxiibka maanta wuu soo daaya maxaa midkaan shaqaalaha u imaana wuxuuna dhahaa fadhiisaniyo ee maa lacagta iska bixiyay badarkee isagana wuxuu dhahaa niyo aan maqaayadan waa liikeen anna wax ma kaa dalban lacagta iska bixinayo ninka malaro iyo imaad wuuna iga taga wuxuuna ikala balmayna adiga lacagta dhiibiyay isagana had danta waxay ku kalaftay inuu lacagta bixiyo macawiista hoosteeda ugu jirtay wuuna furaa xoogaa lacagoo inta soo bixiyo ninka farta ka saaraya ninkaana uu la yaaban yahay kuwa lacag ahna uu siiyey kii maqaayada joogna wuxuu ku dhahaa maku tuugsuwa dhegtaan kugu dhufaa oo dhaa lacagta kusoo daruuriya isagana wuxuu ku dhahaa saaxiibo wax lacag ma haystay cambahan ku darso wixii lacag ahay oo dhan waa ku siiyey cambahan hadda waxaa inaa suuqa gee aan soo gato laakiin idinka oo idin anfacayba qaato dhaaniyo hadda iyadii waxaa lacaglaan u geeb ma haysta maxaa sameeyaniyo saaxiibo hadda wax walba haysta waa ku sii xoogaa biis ma igu soo dartin waa baanay waxaas ma jirtay soo baxo dhaha maqaayadii oona ka saaraa muuqaalka hadda intaan soo gaartay laagay follow iskugu dar labadaa nin aad u jeediin gaarigan intay kadib ay yimaadeen ayay waxay ka bajinayaan badarkii meeshii saarnaay oo loorka ku jiri xariifkii gaariga saarnaayna waa kane isaga wax dhan kama qasno mana u jeedi dadkan badarka dhacayaan kuwaan badarka dhacayana shiid darteed ayaa u geysay kadib midkaan saaxiibkiis wax ku dhaha loorkana haddaa degsan kaban isagana wuxuu taagan yahay loorkan dhamma degsan hadduu ninkaan arka maxaa sameeyanaa isagana wuxuu ku dhaha adiga haddaa cabsiis anaa loorka dejinaya ee iibanaya kadibna loorkii waa uu ka dejinaya gaarigii wuuna la soo cararaa xoogaa kadib ninkiiyaa gadaal inta soo fiiriy ayuu wuxuu ogaanaa in badar laga degsada kadib kii gaariga wadaa wuxuu ku dhaha gaariga jooji markii gaarigii loo istaajiyey kadib wuxuu ku dhaha adiga waa fasaxantahay kuwa tuugo badarka dhaceen ayaa rabaa inaan ka daba gaara si aan shaqadii u waynin odaygaana soo u soo socday kuwii tuugada ah wuu arkaa wuuna kasoo daba cararaa labadii wax soo dhacayna waxay taagan yihiin neefta ayaa naga foqday midkaana intoo qoorta dhiibta ayuu wuxuu arkaa in lasoo daba joogo waxaynu ku dhahayaan saaxib meesha ma kasii carana ee naga keen odaygaana soo u soo socday wuxuu arkaa godkan weyn wuxuuna taagan yahay godkan inaan ka laabto ma jirto inaa geeskaas ka mar ayaa jirta si aan xolihii usoo dhacsado markuu buundada hoosteeda imaadana wuxuu weynaa nimankii inay meesha ka baxsadeen wuxuuna arkaa badarkiisii oo dhulka ku daatay intoo gacanta ku qabta ayuu wuxuu dhaha badar oo 6 bilood aan tacbayay ee may rabaa inay dhidhil ku qaataan mana kiila inaa ka daba gaara ayaa jirto soo dhawaada asxaabe ninkan aad u jeediin maqaayadan inta imaado wuxuu ka dalbanaa biisihii kadib biisihii markii loo keenay gurbaankii oo dhinacanta ka jaxo wuxuu dhex gashanaa biisihii kadib biisihiisii markuu xariisto wuxuu garaacaa gurbaankii oo watay kadib waxaa maqlaa ninkii maqaayada ka shaqaynayay kalwiyeediga ahaa sidoo kale waxaa maqlaa ninkii maqaayad iska lahay kadib wuxuu wacaa ninkii meesha ka shaqaynaya wuxuu ku dhahaa kaale isagiina markuu u imaado wuxuu ku dhahaa ninkaas halkaas fadhiya maxaa ka qaldan ee u tag bal soo fiir wuxuu rabo shaqaalahana wuu ka soo tagaa ninkii booska ahay kadib wuxuu u imaanaa ninkii gurbaankii garaacayay shaqaalahana
isla markii inta garab ka qabto wuxuu weydiinaa maxaa ka qaldan oo gurbaanka u garaace. isagiina wuxuu taagan yahay wax biisa ah liima keenin maqaayada meeqa saaca fadhiya oo dhaha. kadib waxaa u jawaaba midkii meesha ka shaqeynaya indhaha maalaada oo ku leeyahay biisii halkan aan ku soo dhigay aaway. midkaana intuu gurbaanka kor u qaado wuxuu ku dhahaa halkan wax ma saarna waa ujeedaa anigana ma waalin ee maxaa kaa qaldanoo biisaha meel kalmaa geysad ii sheeg. shaqaalihiina intoo yaabo wuxuu ku dhahaa aniga halkan biisa waa kuu keenay ee xaggee aadeen biisii. sidoo kalena wuxuu ugu jawaabaa biisaha haddaa halkan soo dhigtay xaggee aadeen marka biisaha ii sheeg. shaqaalihiina wuu isla sheekaysanoo wuxuu taagan yahay ani biisa halkan waa soo dhigay meel kale lama geenin maxaa qaldan. isagiina wuu ka soo tagaa adigaa ifiirsanayna muuqaalka laagama saarin weli. booskiina wuxuu weydiinaa sababta ninkaas oo gurbaanka u garaacayay. midkaana wuxuu ku dhahaa ninkaas wuxuu iga dalbaday biisa biisihiina waa ogey haddana wuxuu taagan yahay biisa ima aadan keenin. xisaabiyihii maqaayada ahayna wuxuu ku dhahaa waxaa fiirinaynaa kaamirada waxaana ogaanayna ninkan inuu tuuga iyo in kale. labadoodiina waxay ogaanayaan inuu ninkan tuuga uu yahay oo biisaha u xariisanayo gurbaanka dhinac kale ugu xaraystay. xisaabiyihiina waa kana qorshe ayuu wataa. kadib biisa labaad inta soo bixiyo wuxuu u dhiibaa haddana saacadii ninkii maqaayada ka shaqeynaya. wuxuuna ku dhaha dhegta wax kugu sheegaa kaalay. wuxuu ku dhahaa ninka markaa biisaha u geyda saacadda jeebka u geli. isagiina wuu soo baxaa biisahan oo usoo wadana qorshe ayaa laga wataa dib ayaa ka ogaan doontaa. wuxuu taagan yahay biisaha waa iga soo daahee maxaa ka wadaasaan. midkan shaqaalaha aanan wuxuu ugu jawaabaa hadda biisaha waa kuu keena ayadoo kuleel ay hadda si fiican u cun ayuu ku dhahaa. shaqaalihiina wuxuu ku dhahaa biisaha waa cuni kartaa kuleel waa yuusan kaa qabowin adiga fiirsanaana muuqaalka laagama saarin weli. shaqaalihiina wuxuu u sheegaa inuu fujaariga ka halaysan yahay. kadib isaga intuu fujaariga ku mashquulsanayna wuxuu dhexgelinaa jeebkiisii saacadii. maskiinkaana wuxuu bilaabaa inuu biisihii oo cuno. biisihii markuu dhammayna wuxuu taagan yahay biisihii labaadna xaafadda ayaa ku cunaa. isagiina wuxuu taagan yahay hadda kale ilaaba ayuu dharkii. kadib gurbaankiisa inta soo qaato wuxuu rabaa inuu baxo. isagoo soo socdaa waxaa qabanaya ninkii maqaayada ka shaqeynaya. wuxuu ku dhaha adiga waa lagaa shakisan yahay gurbaanka halkan iska dhig in lagu baara ayaa jirto. kadib midkaana baaritaankii markuu ka bilaabo isla markii saacadii oo jeebka u gelinaya inta soo bixiyo wuxuu ku dhaha adiga tuugaa tahay. xisaabiyihii maqaayada ahayna wuxuu taagan yahay adiga booliiska luuca waa lagu xiraa. midkaana booliis markuu maqlay lacag badan uu hayo inta farta ka saaro wuxuu ku dhaha waxba idinkama rabo hadda lacagtaas qaata ee iska kee fasaxa. midkaana wuxuu taagan yahay hadda biil-la-aan ay ugu dhacday lacagtii maantao dhan aan shaqeynaynin kuwaana iga qaateen xataa 3 biisi xitaa haddaa cuni lahay waa iga dhaca leh. muuqaalkan intan ayuu ku ekaadaa intaas soo gaartiin laagnoo saar. ninkan catarka wareejinaya ninkan kale oo wadada taagan intuu u imaado wuxuu ku dhahaa catarkan wuu kala kacsan yahay haddii amarsatidna hal sana makaa baaba'ayo. isaguna intuu yaabo wuxuu dhahaa hal sana ma ay dhahdo waa beentii ugu weyneeda ayaantaa maqlo. laakiin midkan hadalkiisa wuu ku adkaysanaa. ugu dambeyn isagu wuxuu ku dhahaa ii dhiibay waa carfinaaye. kadib catarkii intuu soo qabto gacanta u marinaa. midkan markii uu gacanta catarka loo mariyay carfiyana wuu suuxaa. xariifkan sida uu raba waaye inuu ninkan suuxo. markii uu suuxo wuxuu ka baxsanaa taleefanka jeebka ugu jiray iyo furihiisa gaariga. isagoo isboobsiinayo intuu furihii gaariga geliyo gaarigii meeshii ka soo kaxaysanaa. xoogaa kadib midkii la suuxinayay intuu soo kaco saldhigga imaanaa. booliiskana wuxuu ku dhahaa gaarigaygii iyo taleefankaygiiba waa liga dhacay. kadib ninkii booliiska ahayaa wuxuu ku dhahaa ma noo sheegi kartaa wax tilmaama oo ninkaas ku saabsan dharkii uu watay iyo sida u ekaa maclaha qaabkiisa si aan u soo qabanno. isaguna ciidanka wuxuu u sheegaa inuu ninkaasu ahay nin feere weyn camaamadna ay qoorta ugu duubneen iyo sidoo kale inuu iska dhigayo qof catar wareejinayo. markii ay dadka u imaadaan catarkaasoo indhaha uga buufina markii ay suuxaana wabaarana. kadib nimankii booliiska ninkan waxay ku dhahayaan anagaa soo baareenay orod iska bax. 6 maalin kadib ninkii booliiska ah isagoo bannaanka u soo baxay si uu qudaar u soo gato ayuu wuxuu arkaa nin wadada marayo iska dhigayo nin catar wareejinayo. markii uu arko inuu ninkaanu leeyahay tilmaamo badan oo u eg tilmaamihii loo sheegayay mar dhoweyto ayuu xasuus galaa. wuxuuna soo xasuusanaa tilmaamihii loo sheegayay. wuxuu arkaa marka inuu ninkaanu aad ugu eg yahay ninkii loo sheegayay. kadib mootadiisa oo meesha u taaloo soo kacsana. ninkii oo wadada dhexdeeda marayo uu imaanaa. kadib wuxuu ku dhahaa istaag waxaan rabaa in catarkaa iibsado. isaguna markuu arko inuu ninkan mooto keligeed wato wuxuu ku dhahaa catarkan qaali waaye ma iibsan kartid orod iska tag. laakiin ninka booliiska ma ka yeelayo. wuxuu u sheegaa inuu catarkan uu yahay catarkii uu raadinayay lacagtiisana uu haysto uu raba in laga iibiyo. mootadii intuu ka soo dego uu imaanaa. kadib catarkii uu ka qaadaa. wuxuu weydiinaa marka catarkan haddii aan marsado meeqa maalin uu ahaynaa. isaguna wuxuu ku dhahaa ka welwelin catarkan haddii aan marsatid hal sanoo dhan makaa baaba'ayo. ninkii booliiska ah markii uu xaqiiqsado inuu ninkaanu ninkii saxda ahaa yahay indhaha catar ugu buufinaa isaguna wuu suuxaa. xoogaa kadib wuxuu soo kacaa isagoo xabsiga ku dhex jiro oo ninka booliiska ku dhahaya xabsiga ku dhex jirta ayaa subax wanaagsan. ninkii kale oo booliiska ah intuu imaado wuxuu ku dhahaa qorshe fiican aa soo degtay laakiin hadda kadib qorshahaagu ma ku shaqaynayo meeshaana ku dhex jiri doontaa. ninkan isagoo buundadan isaga hoos qubaysanayo ayaa ninkan kale iyo xaaskiisa buundadii dul imaanayaan. kadib ninkii xaaskiisa intuu u dhiibo cunug yar oo wateen wuxuu ku dhahaa adiga oo welwelin waa inaa buundadan ka tuurta cunugan. ninkanna wax ay ku wada sheekaysanayeen wuu maqlayay. kadib cunugii intay soo tuurtay meesha isaga cararayaan. ninkanna markii uu arkay inay kuwan dhab ka tahay oo cunugii ay meeshii ka soo tuureen intuu cunugii meeshii ka soo bixiyo bannaanka u soo baxay. kadib walaalkiisa inta qabto wuxuu ku dhahaa cunugan xagga
ka keentay. isaguna walaalkiis wuxuu u sheegay inuu cunugan biyaha ka soo bixiyay kadib markii ay waalidiintiisa ku tuureen. walaalkiisna wuxuu dhahaa booliska u geenina inay lacag nagu siiyaan laga yaabay. walaalkiisna hadalka ma ka diidayo oo ninkan wuu ku ogolaanaa. kadib intay soo baxaan waxay imaanayaan meeshii baska ay ka raaci lahaayeen. meesha baska laga raacana waxaa hore u sii jooga ninkii iyo xaaskiisa. kana walaalkiisa wuxuu ku dhahaa cunugan markii aan booliska u geeno lacag fiican ayna sii doonaan. naagtii cunuga yarkaa dhashana waatana aad u welwelaysaa markii ay maqlaan booliska ay nimankan ka sheekeynayaan. laakiin ninkeeda niyada u dhisaayo wuxuu ku dhahaa waxaas ka welweli. nimankaana wejigeena maysan arkin boolisku mana aqoonsanayaan. ninkan kale oo nimankan saaxiibkooda ayaa intuu u imaado wuxuu ku dhahaa idinka mawaalintiin cunugan halkaa ka keenteen. kadib midkaana wuxuu dhahaa walaalkii oo iska qubaysanaya ayaa cunugan soo badbaadiyey. kana mar labaadoo nimankan wuxuu ku dhahaa cunuga aragtiin ma iska soo qaadanaysiin ka war haddii waxaan ku baxreeyo hadhow boolisku nigdhahaan cunuga xagga ka keenteen. anigu hadeertaan waxaan idin dhihi lahay ninkaas iyo naagtaas meesha taagan cunugan iska siiya iyagaa korsanaya idinka baxara ku gelisin haddii aad booliska u geysiine. laakiin nimankan hadalkooda way ku adkaysanayaan oo waxay aaminsan yihiin inay boolisku lacag siinayaan saaxiibkooda hadalkiisana ma maqlayaan. kadib naagta intay soo oroday nimankii u imaanaya waxay ku dhehaysaa cunugan anigaa dhalay iyo aamina wuu iga dhumaye. midkan mootada wata naagta wuxuu ku dhahaa cunug yar oo soco karin sidoo uu dhumaa beentas maa noo keentay. iyaduna hadalkeedii ku adkaysanaya oo nimankan waxay u sheegaysaa inay cunugan si dhab ah u dhashay oo ayna u dhaaranayso. ninkan ugu dambeyn qoftan wuu aamina oo wuxuu ku dhahaa haddii aad dhaaratay cunugan waa ku siinaya hoo qaado. markii ay cunugii soo qaadatana ninkeeda wuxuu ku dhahaa cunug maxay nuugu soo celisay. iyaduna ninkeeda waxay ku dhehaysaa hadda kadib cunugayga anigaa korsanaya maadaama uu dib iigu soo laabtay. adiguna haddii aadan cunugan u baahnayn anigaa u baahan oo hadda kadib waa heesanaa kadib way isaga tegeen. ninkan cunug yar oo iskuul u socday oo wadada maraya intuu arko uu qabanaya kadib gaari u wato ku ridana. cunuga yarka hooyadiisna waatana way u jiiday marka uu ninka cunugeeda qaadanaya. kadib ninkan wadada maraya wuxuu ku dhihi karay cunugii la soo badbaadi. midkan isagu cunuga ma raba ee waa loo soo dirsaday. dadkii u soo dirsadoo taleefka ka qabanaya kadib wuxuu ku dhahaa cunugii ay dirsateen waa idiin soo wadaa. hooyadu cunugeeda ma ka harayso ee gaarigii uu ninka watay dhinaca gadaale ka furaysaa. intii ay dhinaca gadaale gelaysana ninkaana kasii mashquulinayo. wuxuu ku dhahaa niyow xaafadeyda ma ii dhawey kartaa. laakiin midkan wuu ku adkeena. mar labaad wuxuu weydiinaa niyo oona yahay biyaha ma isii kartaa. midkan gaariga wata marka uu arko ninkan aa ka tegin biyihii intuu soo qabto siinaa kadib wuxuu ku dhahaa awr adayga dhag qaado. ugu dambeyn hooyadu waxay ku guulaysatay inay gaarigii gudaha u soo gasho oy cunugeedii u timaado. isaguna waa kanaa gaarigiisii u xirana. markii uu gaariga dhinacii gadaala u xiray intuu soo baxo gaarigii wadana midkana ma ka harayo ee mooto meel u taalo soo qaadana. wuxuu arkaa marka nin boolis oo wadada taagan kadib koofidii ka dafaa si uu u soo dabagalo wayna u shaqeynay how ninkan wuu soo dabagalaa. hooyadii iyo cunugii iyagoo gaarigii sii saaran ayay waxay arkayaan inay magaalada ka sii baxayaan. kadib hooyadu waxay helaysaa oolyo gaariga saarneed. oolyadii intay soo qaadatay daaqada ka daadinee si ay calaamad ugu noqoto ninkii mootada wata ee soo daba socday. xoogaa kadib midkii mootada wata wuxuu arkaa oolyadii oo meeshan ku daadaadsan. kadib wuu soo daba raacaa. hooyada cunuga dhashay aqligay isticmaashay oo markii uu gaarigu wadada ka leexayay oolyada bilowday. midkii booliska waa kan isagoo xanaaqsan wuxuu arkaa ninkii mootadiisii oo meeshan taalo xataa koofida lacagteeda shidaalka uga soo baxaa ka daran. ninkii cunuga soo xaday waa kana gaarigii wuxuu istaajinaa meeshii ay ku ballameen dadkii cunuga u baahnaay. isaga oo taleefanku hadlaayo wuxuu maqlaa daaqada gaariga oo la furaayo. isla markiina ninkii booliska inta imaado ninkii kala qabanaa. wuxuu weydiinaa marka adiga maxaa ka wada koofida maxaa iga soo daftay. isaguna wuxuu u sheegaya in uu rabay inuu soo dabagalo si uu u badbaadiyo hooyadan iyo cunugeeda. ninkii cunuga soo xaday wuxuu arkaa inuu boolis meesha yimaaday. kadib wuu isaga cararaa. ninka booliskana wuxuu ogaanaa inuu ninkan run sheegayo uu cunug yar meesha ku jiro. intuu gudaha u galo gaariga uu cunuga ku jiray ayuu soo bixinaa. ninkan wuxuu u sheegaya inuu shaqo fiican qabtay wuuna iska fasaxaa. muuqaalka intaas ku ekaa leegno saar. ninkan gaabka u jeediin alaabtan intuu soo diyaarsado mootadan meesha maraysa u dhigay kadib fuusadaas ku dhuumanaa. midkii mootada lahay waa kana mootadii markii ay ka bajartay isagoo yaaban ayaa waxa uu imaanaya ninkaas kale oo iska dhigaya inuu wadada maraayo. isagana waa kana ninkii uu waxa wuxuu ku dhahaa niyo mootadana iga hilawday ee meelaha ma ka dhowdahay meel lagu sameeyo. wuxuu ku dhahaa way ka dhowdahay meeshaas waxaa ku yaalo nin mootada sameeyay si khatar uu kugu sameeyna marka waa ina aadaa. kii mootada lahayna wuxuu aadaa meeshii uu ninkan u tilmaamay. ninkan iyo ninkii mootada haleynayna way isla shaqaystaan. kadib midkii gaabnaa intuu soo ordo wuxuu soo aadaa dhinacii dukaankiisa waa kana meeshii isku sii diyaarina. kii mootada lahayna isagoo mootadii jiidaya intuu u imaado wuxuu ku dhahaa niyo mootadana iga hilawda anoo wadada maraayo marka waxaa ka rabaa inaad ii samayso. intuu soo istaago wuxuu ku dhahaa halkaas ii sii fadhiiso mootadaada anaa kuu kala tuuraa. shaqadan shaqadeeda waaye aniga igu hadlay. ninkii mootada lahaa markii uu meeshii ka taga kin kale intuu mootadii soo qaato lugtii u sameynaa. intaas keliya ma ahane markii uu lugtii u sameeyo caag meeshaas u yaalla intuu soo qaato mootadii shidaalkii ka shubanaa. shidaalkii markii uu mootadii ka dhammaystay oo xoogaa yar ku soo reebay si uu ninkii u dareemin. ninkii
ninkii mootada lahay uu waca wuxuu ku dhahaa kaal alaabtada waa kuu dhameeyey. midkaana waa kana intuu ninkii u imaado wuxuu ku dhahaa lacagta meeqa waaye ii sheeg. isagana wuxuu dhahaa $10 waaye iska bixi. kana intuu yaabo wuxuu dhahaa oo mootada hal luga iga sameysay $10 ma iga qaadee. isaguna wuxuu taagay meesha baadiyaha maraysa ee lugtaada waa kuu sameeyey lacagta iska bixi qof kuu sameynaayo maada arki lahayn. ninkan ugu dambeyn ninkan hadalkiisa wuu ogolaanaa lacagtiisana wuu ku wareejinaa. intuu iska soo baxo xoogaa kadib isagoo meeshaan iska marayo ayaa shidaalkii ka dhammaanaa maadaama uu ninkii shidaalkii hore uga shubtay. kadib waa kana uu soo kala wareegaa mootadiina wuu soo jiidaa. ninkan kalena waa kana isla sidii waxaa ku sameeyey ninkii gaabnaay. isagoo la yaaban qofkii alaabtan wadada dhigay ayaa wuxuu arkaa ninkii oo kale mootadii sii jiiday. kadib intuu waxa wuxuu ku dhahaa mootada iga helawday meel lagu sameeyay mataqaanaa. isaguna intuu arka ninkan taariikhdii ku dhacday inay isagana ku dhacday ayuu wuxuu ku dhahaa aniga sidaan camal ay ugu dhacday laakiin meeshaas ka soo sameystay orod aad. ninkan wuxuu ka shakinaa in ninkii mootada u soo sameynayo oo alaabtan meesha ku diyaarsaday si uu mootooyinka u halayay. kadib waa kana uu soo kala wareegaa si uu soo fiiriyo. ninkii gaabnaayna waa kana markii uu mootadii sameeyey sidii caadadeed isagoo shidaalkii ka shubanaya ayaa waxaa arkaya ninkii oo mar hore shidaalka ka shubtay. isagoo sii jeeda oo shidaalkii ku mashquulsan ayuu intuu soo qabto wuxuu ku dhahaa adiga waayo mooho qofka mootadeeda shidaalka ka shubtay. ninkii kale mootada loo sameynayna wuxuu u sheegaa inuu ninkan alaabtii wadada ku diyaariyey shidaalkana uu ka shubtay. kadib waa kuwaana saldhigay wada geynayaan. ninkan isagoo geedkan duleelinaya ayaa geedkii waxaa ka soo daadanaya biyahan cagaarka. kadib biyihii intuu uriyo wuxuu ogaanaya inay waxaan shidaal yihiin. kadib saaxiibkiisa intuu u waco wuxuu ku dhahaa orod jeeg ii soo qabo shidaalkan aan ku shubanne. xoogaa kadib waxaa imaanaya saaxiibkiisoo jeeg weyn la ordaaya. labadooduna si toos ah waxay ugu shubanayaan shidaalkii. midkan kale iimaandaradiisa wuxuu taagan yahay orod jeeg kale ii soo qabo shidaalkan inaan ka buuxsadaa rabaa maante. isla markiina waxaa arkaya ninkan kale oo wadada maraya. wuxuu dhahaa marka nimanka maxaa ka qaldan saaxiriin miya sidee geedka shidaalka uga shubanayaan. laakiin hadda waa inaa baxa oo u taga suldaanka magaalka. waxaa laga yaabaa aniga inuu idilacsiiyo markaan u sheegay. suldaankii magaalka oo guriga kasii baxaya intuu arko wuxuu dhahaa suldaano wax ma ogid. suldaanku wuxuu dhahaa aniga waxaas ay igu daalin meela ka daasana ee waxa kugu dhacay ii sheeg. wuxuu dhahaa suldaano aniga wadada maraya waxa arkay laba nin oo geed shidaal ka shubanaya. labadaas ninna saaxiriin ay ogyihiin shidaal dhan ay qaateen ka waran. suldaanku wuxuu taagan yahay ruuxaas ma ka aaminayeen nakeen waa soo fiirinayna soo baxo ku dhaha. labadii nin ee hadda shidaalka helayana waa kuwana shidaalkii markii ay geedkii ka shubteen geedkii duubayaan. isla markii suldaanka intuu u imaado wuxuu ku dhahaa Soomaaliya ma shidaalka la soo baxday sidee geedka shidaalka uga dhalisay. kadib waxay ku dhahayaan suldaano waxas been waaye yaa ku soo sheegay. suldaanku midkii soo wada intuu qabto wuxuu u sheegaa inuu dilaayo haddii uu tusi waayo wixii uu soo waday. suldaanka wuxuu ku dhahaa muujidido suldaano geedka inay mara ku duubeen meeshan waa meesha shidaal ka socday. iyaguna suldaanka wuxuu ku dhahayaan suldaano geedkan wuu xanuunsan yahay waxaana daawo waaye isaga u wadnaa geedkan waxaan rabnaa inaan daaweyno. suldaanku kuwan kama yeelayo wuxuu ku amraa inay hadda geedka marada ka furaan. iyaguna geedkii maradii ka furayaan. suldaanku markuu arkay inuu shidaalku run yahay kuwan lacag intuu siiyo wuxuu ku dhahaa iska baxa. iyagana waxay weydiisanayeen in alaabtan qaadan karaan wuxuuna u sheegaa inay hadda iska qaataan. labadan markii ay baxaan suldaanku kii la socdo wuxuu ku dhahaa waad baxaysaa gurigeyga tagay. shaqaalayaashiina waxa u sheegay inay alaab waaweyn ii soo qaadaan fuustooyin inaa meeshan shidaal ka dhashaa rabaaye. xoogaa kadib suldaanku wuxuu arkaa inay labada nin ay qiyaameen tubadanna ay shidaalkan ugu xariiriyeen lacagtiisina ay ka qaateen. kadib wuxuu bilaabaa midkii la socda inuu ku ciil baabaxo wuu qabanaa wuu jugeynaa. muuqaalkana intaanu ku ekaaya haddaa halkaas soo gaarta leeg noo saar falowdana hanaga iloobin. ninkan gaarigan meeshaan marayo ayuu baaskiilkan ku hor jaraa. midkan kalena saaxiibkiis waaye. markii uu gaariga istaago wuxuu bilaabaa in haamahan gaaska oo gaariga saarna uu godkan ay soo diyaariyeen oo uu ku arooriyo. kuwii gaariga watana ninkii waxay ku dhahayaan maxaa kaa qaldan. isaguna wuxuu ka codsanaya inay iska cafiyaan. midkaana markii uu hooshii qabsado godkii uu daboolaa. kii kalena waa kanahay nimankii uu sii mashquulinaya intuu saaxiibkiis hawsha qabsanayo. markii uu godkii duugay intuu soo baxo wuxuu soo aadaa dhinaca saaxiibkiis iyo nimankii ay joogeen. kadib kabtiisa intuu soo baxsado saaxiibkiis ku garaaca. nimankii wuxuu ku dhahaa ninkaana u jeedin maalin kastoo sidaa sameeya ee ka raali noqdo haddana waa bixi kartiin oo meesha u socoteen aada. markii ay nimankii baxeen labadoodii intay soo laabtaan ay godkii daboolkii ka qaadayaan si ay alaabtooda u qaataan. markii ay laba xaba soo bixiyaan waxay arkayaan inuu gaarigii gadgadaal u soo socdo. nimankiina ay soo laaban rabaan. kadib midkaana saaxiibkiis wuxuu ku dhahaa meeshan jiifo waxaa iska dhigtaa qof ay lugta xanuunayso. isagana waa kanahay sidii samey la dhaho sameynaa. nimankiina waa kuwaana gaarigii kasoo degaya. waxay ku dhahayaan niyow anaga magaalka waa ku cusubnahay marka waxaa naga dhuntay wadadii magaalka tegaysa. waxaan kaa rabnaa haddii aad magaalka taqaanid inaanoo tilmaanto. wuxuu ku dhahaa gees ka leexanaysiin gees kale ka leexanaysiin toosa u bixisiin hal mar leexanaysiin sidaas magaalka ku joogtiinba. midkan kale wuxuu dhahaa hadda igu soo dhacday magaalka meesha laga baxay waa iloobsanaaye nakeen hadda aadeenaaye. midkan iimaan daradiisana gaariga markii uu soo laabto ma ka yeelayo inuu keligiis baxay. wuxuu ka degsanaa hal xabo oo dhaladii gaaska. markii ay baxaana godkii intay qodaan iyo alaabtii oo dhan ka soo baxsanayaan. kadib meeshii isaga soo tegayaan. galabtii markii la gaaray intay soo baxaan waxay u imaanayaan ninkan gaaska gado. kadib waxay ku dhahayaan haamahan gaaska oo aad u jeedid nadiif waaye waxaan ka rabnaa inaa naga gadato.
waana u jeedaa inay ku jiraan bacahoodii marka lacagtina waa inaana siisaa. isaguna waraaqadan waa adrees kugu qoran yahay intuu jeebkiisa ka soo bixiyo wuxuu ku dhahaa ninkaas waa inaa u tagtiin isaga alaabtan ka qarabti. labadii gaariga gaaska kuwooda waa kuwaana ninkii markay u keenaan wuxuu ku dhahaa gaaskiigii aan ka rabaa markii galabtii la gaaro haddii ay keeni weysina labadiina shaqada waa ninka burinaa. labadii kale oo haamaha soo xaday waa kuwaana waxay imaanayaan meeshii loo soo tilmaamay kadib ninkii arkayaan gaaskiina soo agdhigayaan. waxay arkayaan marka inay nimankii ay gaaska ka soo xadayaan meeshii ay joogaan kii gaaska iska lahayna alaabtiisa u aqoonsana. marka ay ogaadaan inay nimankan yihiin kuwa tuugadaya oo gaaskii ka xadana way wada qabanayaan si ay saldhigga u geeyaan. ninkan meel keyma isagoo marayo ayaa gaarigii ka hilaabay isagoo samaysanaya kuwa reer duureeda fallaar ku soo rideen. fallaarta isaga ma ku dhacaysay caagaan ku dhacday waa kana markii uu fiiriin wuxuu arkay inay kusoo kala ordayaan. wuxuu maagaa intaad ka orodid gaarigaaga gal laakiin intuu imaadaan ay nolosha ku qabanayaan keymaheena u qaadayaan. sidii ay u soo wadeen meeshaan intay dhigaana midkan intuu qaniino wuxuu ku dhaha adiga cayriina tahay dab in lagu saaro u baahantay in lagu kariyo. xariifkan kalena wuxuu taagaya waa kana anahay dhagaxyada lagu shidayo dabka. luuqadii ku hadlayaan ayuu intuu fahmo wuxuu ku dhaha idinka hilib leeso marabtiin kaalay aniga raacaana qorshanyahaye. idinkoo dhibaato marin ayaa waxaa idin siinaya hilib kala kacsan oo biseel soo bax marka. midkaana wuxuu ku dhahaa aniga waqti dheer inugu qaadinay in adiga ku korino ee hilib biseel haddaan noo haysidna soo sii. intuu soo wado gaarigiisa dhinaca gadaala ka furaa wuxuuna u sheegaa inay gaariga si tartiiba u koraan. midkaana wuxuu ku dhahaa alaya adiga cayriinka kugu cuna laakiinse dharbaxo ku jira. meeshii intay isaga soo tagaane waxay imaanayaan meel badda agteeda oo kalluunka iyo jikinka lagu gado. gaarigii intuu u istaajiyo wuxuu dhahaa soo dega meesha idiin sheegaya meeshaan waaye. midkii maqaayadda iska lahayo wuxuu weydiinaa maxaa haysaa wax la cuno. wuxuu ugu jawaabaa malaay iyo jikin ahayaa ee kusoo dhawaada kuwaana maxay ahaayeen maxay la bodboodayaan. war kuwaana u jeedid reer duureed waaye iska daayo ku dhaha ee hadda waxaa noo keenta alaabta ay sidid ayagina wuxuu u sheegaa soo bax waa fadhiisanaynaay. intuu soo wado wuxuu keenaa meeshii ay wax ku cuni lahaayeen wuxuuna u sheegaa inay wax tartiib u cunaan. xoogay kadib cabitaana intaa loo keena iyagoo kala dafi rabo wuxuu ku dhahay suga idinka maxaa ninka qaldan. marka koowaad aniga cabayo waa iga fiirsanaysiin kadib waa iga daba cabaysiin. cabitaankii markay cabeen ninkii maqaayadda lahay waa kana alaabtoodii wuu u diyaariyey. markii loo keenana waa kuwaana intay kala dafaanay hore afka ka gashaayaan weyna ku gubanayaan. midkii duurka ka keenana waa kana wuxuu ku dhahay idinka hal sano tababaraa u baahantihiin suga horta anaan tusaay marka waad si aa cuni lahaydeen. hal xabaa intaa tartiib u soo qaadataa jabka jabsanay afkaana gashanay khatar maahino. xoogay kadib markay cunada dhamaysteen wuxuu weydiinaa sii dareemaysiin. midkan wuxuu taagan yahay hadda waa dharagnay laakiin casho u baahannahay ee adiga ma ku qaadan karnaa. wuxuu ku dhaha war idinka maxaa ninka qaldan cashada xitaa halkan waa imaan kartiin waana cuni kartiin. haddana aniga waa sii baxa alaab kala idiin keena ee meeshan waa inay igu sii sugtiin. markii uu ka soo tegay isagoo meeshaan marayo wuxuu dhaha haddaan nii soo laabto ilaahay anigana reer duureed ha iga dhigo kaarigiisa soo qaadaa meeshiiona isaga taga. kii maqaayadda laaya intuu u yimaado wuxuu ku dhaha maqaayaddii kusoo dhawaada haddana lacagta iska bixiya. waxay weydiinayaan lacag maxaa la dhahaa. lacag ma taqaaniin miyaah ku dhaha waxaan aan hadda ni siiyey free miya macnaha aniga ma sadaqaystay. haddii aadna lacagkiisana anaa qorshanyahaye soo baxa. intuu soo wado midkii u weynay wuxuu ka dhigay midka guriga u xaqo. midkii labaadna alaab dhaqisa u dhiibay laakiin midkii saddexaad waa kana shaqadii ugu adkeeda u dhiibay. muuqaalkun intaas waaye leegno saar. odaygan basixiirka isagoo raba gaariga inuu dhagax ku jibiyo ayaa ninka booliska inta qabto wuxuu ku dhaha adiga maxaa kaa qaldan gaariga maxaa dhagax ugu jibinaya. isaguna wuxuu taagan yahay gaariga lacaga ku dhex jirtay anigana baahiya iyo lacagtaas waa u baahnaa sidaas darteed inaad jibiyaa raba kadib aa lacagta kala baxo. midkan booliska gaarigii fiirina marka wuxuu arkaa inuu nin ku dhex jiro kadib kii intuu ku soo laabto wuxuu ku dhaha gaariga ninaaba ku dhex jiray maxaa lacagta uga xadee. wuxuu maagaa marka inuu gaariga furo laakiin gaariga ma uu furmaayo kadib wuxuu bilaabaa inuu ninkii daaqada ku gargaraaco si uu u kiciyo. ugu dambeyn gaarigii intuu soo jibiyo wuxuu isku dayaa ninkan inuu kiciyo laakiin ninkan ma kacayo wuxuu u egyahay nin suuxsan. isagoo raba marka inuu lacagtii qaato ayaa kii kale soo fiirinaya kadib intuu kusoo jeesto wuxuu ku dhaha adiga maxaa kaa qaldan maxaa iga soo fiirinaya. odaygu wuxuu taagan yahay askariyo tuugat ama oo lacagta waa qaadanaya labadana lacagta noo kala qaybi laakiin askarigan ma ka yeelaya ninkan intuu qabto xirxiraa dhulkuuna fadhiisinaa. intuu soo baxo gaarigii dib ugu soo laabanaa wuxuuna sii wadanaa inuu lacagtii sii aruursado. markii lacagtii oo dhan qaato hal xabuu meeshii ugu tegaa kadib intuu baxo xoogaa kadib soo laabanaa isagoo galaas biyaa wato. kii gaarigi lahayo biyihii ku shubaa kana markii uu soo kacay intuu yaabo wuxuu dhaha xaggee jooga aniga xabsi baan ku dhex jiraa kadib agagaarku fiirina. askarigu midkan wuxuu ku dhaha anigoo wadada maraya ayaan waxa arkay midkan tuuga oo gaarigaaga inuu jibiyo isku dayayo oo lacag ka qaato. midkan gaarigale markii uu lacagta waayay askarigu wuxuu ku dhaha askarigu waa ku barya midkan ii xir lacagtiga waa inaa iga qaadaa. kadib askarigu midkan intuu soo istaajiyo soo wadaa kadib sida u soo wada meeshaan intuu la soo istaago wuxuu ku dhaha si fiican ii dhegeyso. haddaba waa kuu sheega haddaan ninkaas u sheegtid inaad lacagta ka qaatay adigaa ku xiraa xabsigaana ku urey. intuu soo celiyo wuxuu u keenaa midkii gaariga lahay wuxuu ku dhaha ninkan si fiican waa inaa u baarnaa lacagta ka soo saarnaa. laakiin odaga basixiirka waa kana wuxuu dhaha ibaara si fiican ii baara haddaa rabtiin lacag ma haysta aan meesha igu jirto. midkaana isagoo keligiis isla hadlaayo ayuu wuxuu arkaya jeebka askariga inay lacagtiisii ku jirto. keligiisa isla hadlaaya marka wuxuu isku dhaha midkan askariga isagaa tuuga isagaa lacagta iga qaatay isla markiina wuxuu arkaa odaygii oo askari
lacagtii kasii xadaayo. Wuxuu taagan yahay marka kuwaan anoo u jeedo ee lacagteedii horteeda isaga xadxadayaan. Odaygii basaxiirka ay intuu u imaado midkaana wuxuu ku dhahaa lacagtaadi waatana anaga ku wado kadib wuu ku wareejina. Kadib askarigii intuu isku naxo oo jiibkiisa baaraa laakiin lacag dhan mu ku arkaayo. midkii gaariga iska lahay ugu dambeyn askarigii wuu u mahadcelinaa wuxuu ku dhahaa waa mahadsan tahay niyo maadaama lacagteedii ii soo celisay. askariguna muxuu sameeyaa waa kana meeshii isaga soo tagaa. muuqaalkan intaanu ku ekaay hadda halkaas soo gaarta leeg noo saar. ninkan afka u duuman yahay maqaayadan intuu yimaado si uu shaax uga gato ayaa midkii maqaayad lahaa wuxuu arkaa in ninkan la raadinayo madaxiisana ay lacag badan saaran tahay. wuxuu ku dhahaa marka haddii aa shaaxa ii keenta maxaa ay ag taagan tahay. isaguna wuxuu ku dhahaa niyo waxaa raba inaa ku weydiiyo shaaxa sidee waaye. wuxuu ugu jawaabaa hadhow waa kuu sheegaa shaaxa markaa cabo. midkii maqaayad lahaa isagoo ku hayo ninkan waa inaa booliska ugu waco si aan lacagtan u qaato ayuu wuxuu arkaa nin kaloo maqaayadiisa ku dhadhajinaya ninkii sawiradiisa. wuxuu weydiinaa marka ninkan maxaa laga rabaa maxaa loo raadinaa. kanna wuxuu ugu jawaabaa ninkan waa nin tuug ah bangiga wuxuu ka soo dhacay lacag aad ugu badan sidaas darteeda loo raadinaa. marka haddii aad meel ku aragtid booliska u wac kadib boolisku lacagtaada ku sii doonaan. midkii maqaayadlaha waxaa u imaanaya mid kale oo saaxiibkiis ah kadib wuxuu ku dhahaa niyo waxaan kuu sheegaya dhegeyso ninka meeshaas fadhiya oo shaaxa cabayo waa nin tuuga bangi oo soo dhacay booliskuna way raadinayaan. marka ka waran haddaa booliska u wacno lacagta madaxiisa saarana ah kala qaybsano. waxaa u imaanaya marka midkii tuuga ahay kadib wuxuu ku dhahaa niyo lacagta maqaayada iska bixi waa 5 kun. isagana intuu lacagtii soo bixiyo ninkan ku wareejinaa wuxuu ku dhahaa marka shaaxaaga wuxuu ahay qaraar hadda kadibna soo laabanay. midkii maqaayadlaha ahaa iyo saaxiibkiis waxay isku raacayaan inay ninkan sawirkiisa derbiga ka fuqsadaan kadib ay daba galaan. kii tuugahayna saaxiibadiis intuu wacdo wuxuu ku dhahaa laba ninaa ka shakiyey ee ii imaada intaan maqribka la gaarin. waa kana marka dukaankan meeshaan ku yaallo ku soo leexanaa si uu sigaar uga gato. labadiina maysan ka harin waa kuwaana way daba joogaan. ninka maqaayadlaha ah iyo saaxiibkiisna qaladay galeen oo booliiska maysan u wicin. labadoodaa soo dabagaleen ninkan si ay u qabtaan. waxay rabaan inay iyagu gacantooda ku geeyaan xabsiga si aan lacagtooda loogu diidin. kadib midkii tuugahay alaabtiisii wuu soo gatay. labadiina waa kuwaana way daba raaceen. isagoo meeshaan maraya ayay qabanayaan. isagana nasiibkiisa saaxiibkiisoo gaari wataa u imaanaa. labadoodana gaarigiiu gelinaa. intuu gaarigii ka soo dabagalo labadooda baarana wuxuu ku dhahaa taleefanada haysiin oo dhan bannaanka u soo bixiya. labadooda markii oo taleefanadii ka qaatay saaxiibkiisa wuxuu ku dhahaa niyo labadan haddaa wadana ka waran si ay beerteena nuugu beeraan. laakiin tuugan ma yeelaayo wuxuu ka shakisan yahay inay labadan nin fashilaan. ugu dambeynna gaarigii uu ka soo tuuraa. iyaguna intii ay islahayeen lacagta qaata ayay taleefanadoodii ku waayeen.